iyadoo 24 saacadood ee u dambeeyay ay soo baxayeen warar sheegaya in deegaanka Leebikuun ee ku yaala wadada dheer uu ka dhacay dagaal beeleed ayaa xisbiga waddani ee gobolka togdheer ayaa waxa uu ka hadlay dagaalkaasi xogayaha xisbiga waddani ee gobolka togdheer Cabdisamed Axmed Boon oo la hadlay telefishinka Horyaal ayaa sheegay in dagaal beeleedku soo noqnoqdo loona baahan yahay in xal laga gaadho xogayaha ayaa ku eedeeyay maamulka gobolka in aanay mas'uuliyad iska saarin colaadaha soo noqnoqda deegaamadiyo beeli baa gudmay isla dhacay iyo qaar qoriyo isla dhacay iyo qaar xabees suustay iyo qaar warbayn ka soo afaysanaya ayaa taagan kow Leebikuun ha ka hatiyo wadada dheer wala soo urursanaya wala soo toorursanaya wala soo gudun urursanaya wala soo colaad urursanaya tiifiyadana waa ka arkaysan oo ka baxaysan wax calaankaas xukuumadda ku baxday iyo wax ka qabatay iyo wax nabadgelyada ka hortagay ma jiray marka wax dhacdaba yaan booliska Hindiyaad muddo booliskeen waxa ku wax dhacaan marka wax dhacaan dhigeen laga dhinto qof nagama go labana nagama go'an mid la xigtaanay nagama go waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo golayaasha nabadgelyada inay ka hortagaan wadada dheer wixii ka jira waxaalada deegaan cid baa abuuraysa cid kasto abuuraysa nabadgelyada ka shaqeysa gacan biraha lagu qabto laga hortagaa maan leenoo tayada arrimaha deegaankana laga hortago siyaasadii arrimaha guduhu waa fashilantay ciidamada qaranka lagu dhaxlaynaya afarta beerushana beeli baa isku haysto mid wala mid kale mid la soo baxaysa iyo mid tooro soo baxaysa mid ood sidii mid gudistay noqoto iyadoo wax la ka hortaga waxaana leeyahay gudoomiyaha dhalinyarada xurriyadiisa loo soo celiyo waxba maxkamadda xadka ka xalaalina kulba xaalada ka abuurna dad muulayn fikirkiisu cabiray qof fikirkiisa xabsi lagu geeyo way adagta waxaan kale ku leeyahay Cabdullaahi sidoo saxaafadaadii wadada dheer waxa ka jira ka hawl kala dadka wacdi gali inay dadka wada leeyihiin nabadgelyo dan u tahay iyaga baadi doona ma ilmaad hadlay nabadgelyada inaan ku fadhno taa ku shaqeysanaysa anaguna naga asxaabta ku ah laakiin cid bay lagu duunaysay waxaad wadeen xukuumadda duunaysay Cabdullaahi waa laga hortago Cabdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi Horyaal TV Burco.